وانا نسلام انا في عمتنا يا رجينا عود كان واتخانان كسي مشغول منه سو دبدان leeyahay waa muddo kadib Usmaan mar kale ii soo laabtay baadaway muuqaalkan maanta idin hayna wuxuu bilaabanayaa sanadda iyadoo maraysa 1928 magaalada New Jersey kadibna waxaan baranaynaa gabar biya lagu magacaabo taasoo dhigata iskuul dugsi sare ah maantana iyadii arday galaas kala dhigata ama iskuulkooda u soo waday museum si ay wax uga bartaan waxyaabihii hore ee qadiimiga ahaa museumkani intay joogeen biya waa mid aad uga helaysa gitaar meel xaggaas yaalay oo sanado fara badan ka soo wareegatay waxayna damacsan waqti xadirkaas inay taabato balse macalimadeeda ayaa taas u ogolaanaynin una sheegtay waxyaaban museumka yaal in mamnuuc tahay in la taabto si kastaba biya waa mid aan dhegeysanaynin hadalada macalimadeeda intaas kadibna qoralka museumka ayagoo dhex warwareegaya mid fasalka la dhigta oo xarfaan ah uu gabadhan weydiinayo maxay tahay sababta aad uga heshay gitaarkan meesha yaala waxay isugu jawaabay ani waxaabaad guul qadiimiga waan jeclahay sababtoo ah qarniyo ayay ka yimaadeen daqiiqadii kadibse ardada oo la soo tusiraba waxyaabo kale biya waa mid arkaysa qol bir ay ka horeyso qoraalka si muuqaneen uu sheegayo isku gelin qolkan haddii kale waa lagaga soo horeeyaa balse biya waa mid aan dhegeysanaynin amaba aan ixtiraamaynin qoraalkaas waxayna go'aansanaysaa inay gudaha u soo gasho waana bay soo gashaba meelihiina iyadoo fiirfiirinayso waa mid xaggaas ku arkayso faraanti qadiimi ah filmina aad u qurux badan ayadoona ka laalabeen ama isweydiina wuxuu yahay waa mid intay yar kala soo baxday bokoskii ku bilaabaysa fiirfiiris daqiiqadihii ay meesha ku sugneedsa nasiib xumo waxaa arkaya mid kamid waardiyaashii museumkan biyana u yimid isagoona u sheegay mamnuuc inay tahay qolka in la soo galo si ay ku soo aragto bilaawga qoraalka sheegayay amarka waardiyana intay qaadatay ka soo baxaysa qolka balse waxay isku soo ilaabaysaa faraantigii qadiimiga ee museumka lagu sharaxayay intaa kadibna banaanka markay museum ugu soo baxeen iyada iyo ardadii kale kalaaskiis la dhiganayeen kuna mashquulsanad weli fiirfiiritaanka faraantigan si lama filaan ama nasiib xumo gaari wadada marayay uu gabadhan u dirayo halkii loo badnaay macnaha uu dardarayo halkaasna ayayba ku dhimatay intaa kadib waqti xaadirkaana nimaano sanado fara badan oo dhacdaas kasii wareed kadib waxaynu baranaynaa wiil ciyaalka xaafadda ah oo kool magaciisa la yidhaahdo isagii hooyadiisa kana soo guureen guri kadib kool aabihiisa oo dhimasho degdega ku imaatay si ay isku ilowsiyaan gurigii hore deganaan jireen ama u xasuusta aabahooda koolna hooyadiisa weydiinaysa guriga sideed u aragtaa ma ka heshay isagana uu dhahayo maama waa iska macquul waa degi karnaa gudahana markay u soo galeen guriga kool uu dareemayo meesha wax badan inay ka qaldan yihiin ama guriga uu xoogaa caadi ahayn habeenkiina markay ahayd wiilkan iyo hooyadiisa oo wada cashiinay kana sheekaysanayeen xasuuso hore hal mar ee guriga gudihiisa ka maqlayaan cod ka soo baxayo wiilkan kool u magacaabo intuu gees ka dhigay raarataan u galayo codkaan iyo meeshuu ka soo baxayay mid kamid qolka markuu soo galay si lama filaan meeshaas ku arkaya firim derbi ku sharaxna oo dhulka yaala codda soo ridana aan la aqoonin isagoo damcaysa inuu meesha ka qaado kuna celiyo meeshii uu surnaa kool uusan war u haynin gabadhii biyahayd ee bilowga filimka oo ruuxana agtiisa ay marmarayso asagana uusan u jeedin inay meesha ku jirtana asoona fahmin kama dambeyntii ka baxay qolkii subaxdii xigtana koolo iskuulkiisa iska soo aaday waqtigii kalaaska mid kamid macallimiinta wax u dhigta uu su'aal weydiinayo balse kool oo ah dadka musiga ama gitaarka si loo garaaca jecel waxbarashadana aanan saas ugu sii fiicnaynin su-aashii si qaldan oo been ah uga jawaabayo midaasna waxay keentay xiisadii markay dhammaad kadib macallinkii uu kool meelgees ula soo baxo isagoona weydiiyey maxay tahay sababta aad beenta u sheegto beenta ma ahan mid fiican saad og tahay mar walbana daacadda ay ka muhiimsan tahay in been la sheego si kastaba kool uu weynayo wuxuu ugu jawaabo macallinkiisa intaa kadibna kafateerigii iskuulka isagoo wax soo cunaya gabar liili lagu magacaabo ugu imaanayso waxayna wiilkan u sheegaysaa agtiisa ama agaarkiisa caadi inaysan haynin ee wax ka dardareemayso haddama gabadhan liili lagu magacaabo ay ku wanleed waxyaabahan gostiga ku saabsiisan ayadoon u soo jeedisay lacalla haddii aad wax aan caadi haynin sida aniga aan arkoyo aad aragto diyaarayaan ku ahay inaan ku caawiyo halka koolna waxyaabahan ay liili dadalaysa oo dhan waxba uusan ka fahamsanaynin amaba iska dhigitirayo kama dambeyntiisa liiliya qorshe meeshaan u imaaday oo ahaa in youtube janaalkeeda subscribe uu u saaro ka codsanaysa kool in subscribe uu u sameeyo si dad fara badan ay meeshaas uga hesho waana uu yeelaa codsigaaskeeda maalinkaasna iskuulka kadib habeenkii kool oo qolkiisa isaga jiro aad u soo xasuusanayo aabihii sii dhintay balse mar dambe haddana isku daya inuu is ilaawsiiyo wuxuuna furfurayaa armaajooyin meeshaas yaalay si lama filaanaysa wuxuu arkayaa buug meesha yaalo isagoo la yaabana wuxuu yahay mucidda meesha keentay uu kama dambeyntii go'aansaday inuu buugkan baaritaan uu ku sameeyo biijka ugu horeyna gabar magaceeda biyahay qof magaciisa biyahay uu ku qoran yahay wuxuuna dareemaa in biya qofka magaceeda yihahdo uu buugkan iska leeyahay wuxuuna siwada kadib inuu akhriyo isagoos wax yar ka mashquulaya hal mar buuggii oo u kala furnay waxaan loo jeedin ay isku xirayaan taasoona ka naxsiisa wiilkan intaasna intuu la yaabanay mar qura faraantii uu ka soo dhexbaxayo buugga kadibna dhulka uu ku dhacay isagoo la yaaban waxa meeshan ka socda habeenkaas uu iska seexday subaxdiina markay ahayd uu go'aan ku gaaraya xalatole wuxuu arkay in baaritaan uu ku sii sameeyo muddo sikina uu fiirfiirinayna kama dambeyntii go'aansanayo in farta uu gashto waan uu gashanaaba si lama filaanaysa meel gadaashiida saas markuu farta ugu taabtay faraantiga saas markuu faraantigii fartiisa
gacantiis u geliyey meel kadaashiisa gabadhii biyahayd oo ruuxaan ay ka soo muuqanayso sidii hore si ka duwanna waqti xaadirkan uuba gabadhan caadi u arki karo taasna intuu aad wanaxay ku dhacay dhulka farantigan iska tuuray si wax u socdeena soona fahmin u go'aansanayn baaritaan uu kusii sameeyo buugga markuu beejiskiisa saas u gudgidiyana sawirka gabar meel walba uu ka muuqdo wuxuuna xaqiiqsanaa qoftan biilyahaadu buuggan inay leedahay halka farantiga uu iska tuuray keligiis uu hawadaas iska dhex socsocdo gabadhii biyahaydna wiilkan ku qalqaalinaysa in farantiga farta u gashto cabsi fara badan oo loo daaran kama dambeyntiina kool wuxuu go'aansanayaa in farta u gasho face to facena ula kulma gabadhii biyahayd iyadoona wiilkan cabsida ka muuqata wejigiisa dhehaysa isdeji anigu kuma wax yeelanayo isbaraysa wiilkan u sheegtan magaceeda biyo ayaa layidhaahdaa mar hore ayaa dhintay weliba qarnooyin ka hor dhimashadeena waxaa ka dambeeyey gaari i dardaray balse ay la yaaban tahay sababta gurigan ay ugu dhex maxbuusan tahay muddo badan isku daday inay gurigan ka baxsato balse albaabka markay saas lugta ugu bixiso wax ayba istaajinayaan wada sheekaysigii wada sheekaysanayeense kool hooyadiisa ay maqlayso waa mid usoo gargaraacayso albaabka say u xasuusiyay iskuulkiinu ka tahay si kastabe kool cabsi far badan ay gelayso maadaama uu istahayay gabadhan sidoo kale hooyadaada way aragtaa balse biyay dhahayso adig keliya ayaa arki karo hooyadaada ani iima jeedo maadaama faranti uu adig farta kugu jiro intaasna wiilkan jahawareer ayay ku reebaysaa isagoona isdhahay maskaxdaada waxyaaba kuusa sawirayso waxyaaban faranti intuu iska bixiyey iska soo aaday iskuulkiisa maalinkaasna iskuulkii kadib galabkii markuu dib ugu soo noqday guriga mar kale uu farta gashanaya farantigii waana mid aaminsanaya waqti xadirkaas gabadhii biyahayd ee maanta warkaya in mar dambe uusan arki doonin balse silma filan wuxuu ku dhex arkayaa armaajooyinkii meesha yaalla mid ka mid a intaas kadibna wiilkan uu gabadhan u sheegay hadda laga bilaabo maadaama aan maalmahan kaa caabsado ani adiga inaan kala fogaano ayaa noo fiican hase hatee bi aysan ka yeelaynintaas maadaama gurigan keliya dee maxbuus ku tahay qof ila sheekaystan aysan haysanin si kastabe kool uu gabadhan ugu hanjabayo farantigaan isaga dhan waa tuuraa si mar dambaan isku arkin haatan waxaa rabaa homework iskuulka loogu soo diray inaan ka shaqeeyo ee farahayka qaad intaa kadibna kool waa mid bilaabay inuu shaqadii iskuulka loogu soo diray qabto balse gabadhii biyahayd oo xanaaqsan waxyaabii qolka yaalay oo dhan ay bibilaabaysa inay jijebiso si uu ula hadlana mar kale farantigii farta gastay wuxuuna ka codsanaa inaysan dhibin balse biyo oo sawir derbiga ku sharaxna aragtay weliba gabar weydiinaysa qoftan ayay tahay wuxuu sugu jawaabaa waa fanaanad aan aad ugu daydo maadaama aniga laftigii aan maalin uun jeclahay inaan fanaan noqdo waxayse dheehatay saas tahay oo fanaan jeceshahay inaan noqoto gitaarka meesha yaallo hal hees noogu tuur oo qaaci ah wuxuu sugu jawaaba waan ka xumahay waa jiri jirta mar aan jeclaa jir inaan gitaarkaas ka raaco iyo fanaannimo laakiin hadda waa ka niijooy maadaama aan waayo qof heese aan qaado dhegaysto wuxuuna ka codsanaa walaalayahay dhibin mar dambe howshan iskuulkan iska dhammaystira intaas kadib kool oo qadiinayay mar kale gabadhii biyahayd ee bilaabayso inay ku ciyaarto waxaana waqti xadirka sarkaya isagoo murugsan hooyadiis waxayna u malaynaysaa weli aabihiisii dhintay inuu ka welwelsan yahay su'aalahaydna weli ma ilaabin miya aabbahaga weydiisay hase hatee su'aan ka jawaabin ka soo aaday qolkiisa farantigiina mar kale fartiisa gashtay gabadhii biyahaydna iyo isaga go'aan kala qaadanayaan wuxuuna weydiisanaa hooyadeed anigoo la jooga mar dambe ha soo muuqanin oo ha igu ciyaarin ayadana waxay ka codsanaysaa waxaan rabaa gurigan inaan ka baxo farantigan oo adiga farta kugu jira ayaa iga caawin karo taas ma iga caawinaysaa balse wuxuu ugu jawaabay gabadhan uu weynaayo kama dambeyntiis oo mid koonsatay gabadhan inuu bannaanka u soo wado magaalkiina uu soo kaxeeyey baashaal biinay la yaabayso in 100 sano ka hor ay dhimatay maadaama adduunka maanta teknolojiyad taleefon gawaari qurux badan waxaa fara badan laga isticmaalo iyadana waqtigeedii waxyaabaas aysan jirin magaalkoodin intay bay baashaalayeen kool wiilkii ahaa uu gabadhan u sharaxayo wax walba oo ayda ka dambeeyey dhexdoodina hatanba uu ka dhex bilaamay cudurka ku dhaca dameeraha aadna isugu soo dhowaadeen labadooda habeenada ka mid gabadhan ay kool u sheegayso ka hor intaysa dhiman hamigeeda amaba qorsheedu waa inay noqoto pilot nasiib xuma suuragelin waxaabaa sida dalaysase kool uusan maskax iyo mir u lahaynin maadaama gabadhan uu ka helay maalmahan ama cudurka dameeraha ku dhacay uu ku dhacay nasiib xumana aan u sheegi karin laftarkeeda b waxbay dardareemaysa laakiin ayadana way qarsanaysa intaysan kala teginsa habeenkaas b ay ka codsanayso kool in subaxda soo socota iskuulka isku raacaan labadooda markii hore suu ka diiday kama dambeynta yiri waayamaan kuwada isdiyaari ruuxaan yahay subaxdii xigtana markii la gaaray labadooda isku soo raaceen iskuulka b inay la yaaban tahay sistamka ka dambeeyey iyo gabdhahan dharka gaagaaban wato maadaama waqtigoodii mar weyn la dhisa jiray isagoose kala baraya iskuulkooda iyo fasalada gabadhii lidiheed ay ka hor imaanayso kool iyo lidina markay bilaabeen inay wada sheekaystaan lidi ay dareemayso wiilkan agtiisa inay wax marmarooyaan wayse u sheegi taas halka gabadhii biyahaydna ay kool weydiinaysay qoftaan galfrentaada miyaa labadoodina ku dhex jaha wareeray wuxuuna go'aansanaa farantiina inuu iska siibsi bi meeshadan ay uga baxdo waqti xadirkaasi lidia ay arkaysa farantigiisa waxayna dhehaysaa farantin quruxda badan ee qadiimiga weliba noocii hore antee ka heshay wuxuuse weynaa su'aashaas jawaab uu ugu jawaabo agteeda oo dhanna ka tegey hoolkii iskuulkan isagoo dhex maraya mar kale farantigu farta gashanaya si bi agtiisa ugu soo noqoto nasiib xumase gabadhii ayba meesha dhan ka soo muuqanaynin wuxuuna isweydiinaya xagii ka baxday raaraadin u galay kama dambeyntiin arkay iyadoo biyaano mid ka mid qolkii iskuulka dhex taalla garaacayso waxayna
waxaana dhahaysaa adiga macallinku ah sida waxyaabahan loo garaacay gaala maadi barbartid halkiina labadooda ay ka bilaabeen baashaal dhinaca kale qoftii liidi ahayd oo faraantigii maanta ee kool ku aragtay aad u xiisiinaysay asalkiisa meeshuu ka yimaaday akhritaan ku bilaabaysa buug qadiimigaha oo yaalay awowgeeda buug shop uu lahay mid midab waqtina ka akhrinaysaa in faraantigaas uu yahay faraanti aan caadi ahayn welibana uu yahay mid habaaran qisadiisana si ay wax badan uga sii ogaato raayitaan dheer ku samaysay kama dambeyntiina uu soo baxday in faraantigan uu jiro mid kale oo isla noocaana oo habaaran museum isla magaaladan toodana dhex yaala habaarta faraantigana keliya uu ku burburi karo amaba daawo loo heli karo haddii labadaas faraanti ee kala maqnaay la isku keeno dhinaca kale guriga kool isagii gabadhii biyahayd oo wada sheekaysanayay maalmahana saad oogid ku soo dhawaaday ay wax ka weydiinayso aabihiisa iyo arrimo ku saabsiisan sidoo ku dhintay wuxuuse uga jawaabaa aabahayga wadna xanuun degdeg ah ayaa ku yimid kadibna wuu iska baxayba waqti xadirkaasi bi ay soo xasuusanayso in maanta ay ku beegan tahay maalintii ay dhimatay 100 sano ka hor taas darteedna kool uu dhahayo maadaama happy birthday ay ku tahay tan oo kale ka hor haddaan u dabaaltegno fikrada uu soo jiidayna kool bi ay aad uga helayso labadoodii oo wada socda ku soo raacayaan meel xaflada halkiina waxay rabeen ka sameeyey waana markaas bi wakhtigii ogaatay in haatan qof walba ay arki karto ayadana la arki karo baashaalkoodii habeenkaas oo dhanna xitaa la isla gaaray in labada gafuur la isku salaamo baashaalkoodii dheeraa kadibna xafladiina ka soo baxeen usoo socdeen guriga soo maraya meel qabuuro ahayd halkiina damcaya inay isku sheegtaan inay isjecel yihiin balse weli meesha waxay ka qaldan yihiinna ayna awoodin inay istaataabtaan maalintii xigtana gabadhii liidi ahayd iyo kool oo wada socday imaanayaan gabadhan awowgeeda buugshopkii uu meesha ku lahaa waxayna tusaysaa waxyaabii xalay baaritaan kusoo samaysay iyo faraantigii ay ku aragtay uu yahay mid inkaaran kacsi daradana qof ruuxaana waqti xadirkan uu ku dhex nool yahay laakiin macquul ay tahay faraantigaas inkaaran in balaayada ku dhex jirto laga adkaado keliyana loogu adkaa karo faraantiga labaad in la soo helo labadoodana laysku keeno waqti xadirkana kaas uu yaallo museumka ku yaala New York welibana iib yahay oo qofkii raba uu gada karo haatana ku qasbiyihiin faraantigaas inay soo helaan si ruuxaatan ku dhex jirto meesha uga saaraan maadaama sikool uu ogaa wax walba ay gabadha sheegayso uu isagana hoos u gaansanayo in faraantigaas uu soo helo wax walba ku qaadato intaa kadibna guriga uu dib ugu soo noqday arrinkuu maanta soo ogaadana oo faraantigaas kale ku saabsan gabadhan uu sheegi rabay silma filaan gabadhii biyahayd qolkii wiilkan eeba aad u sharaxday weliba si qurux badan waxayna ka codsanaysaa labadeenna cawar romantic ayaa jiraynaa heese qaacaya noogu tuur taasna wiilkan ay ku kantay in waxyaabihii uu gabadhan u sheegi rabay gabadhan uu ilaabo gitaar garaacuuna iska galay markay dhegaysatana wiilkan in gitaarka si fiican uu garaac yaqaano kureysa waa inaad ka qayb gashaa tartanka ka dhici doona iskuulkiina ee heesqaadowga una ballanqaaday maalinkaas aad showga dhigayso qofta ugu horreeya ee leenka soo gelaysa anigaa noqon doona maalintii xigteen iskuulka kool oo maalmo kahor imtixaan ay galeen natiijadiisa la qiibinayay wiilkan uu ogaanayo in natiijo hoose uu keenay weliba d aad intuugu xanaaqataas macallinkiisii weydiinayo sababta aad d ii siisay waxaase loogu jawaaba wiil aan waxbaran ayaa tahay maalmahana laari caadi ayaa tahay waa inaad waxbarashadaada ku dadaashaa intuu kasii labcaroodana kasoo tegaba xafiiskiisa oo dhan intaa kadibna iskuulkaasi uu kasii baxayo uu xasuusanayo in maanta ay ku beegan tahay maalinkii faraantiga la xaraashi lahaa websiteki lagu xaraashana markuu kale ogaaday in faraantigii haatan uu hawada ka baxsan yahay ama qof uu gatay isagoo taasi adigu waxna gurigii dib ugu soo noqday gabadhii biyahaydna iyo isaga bilaabayaan inay biyaano iska gargaraacaan waana waqti xadirkaas gabadhii liidiyahayd markay u soo dirtay fariin amaba qoraal ayadan ugu sheegaysay in faraantigii kama dambeyntii qof uu gatay nasbaxmase qoraalkaas b ay arkayso waxayna weydiinaya meesha maxaa ka socda maalmahan qof waxa iga qarinaya ayaad u egtahay maadaama saatan uusan haysanin waddo kale uu u sheegayo wax walba iyo ruuxadanteeda ee faraantigan ku dhex xaniban in keliya la burburi karo waa haddii faraantigaas labaad la helo balse uusan doonaynin in faraantigaas isaga dhanba la helo maadaama haddii ruuxadanteeda faraantigan uu ku dhex baxo labadooda mar dambe is arki doonin si kastaba biya waxaaban uu ka qarinaya ee uu maanta u sheegay iyadoo ka xanaqday ka codsanaysa faraantiga fartiisa ku jira inuu gebi ahaanba iska siibo mar dambana uusan horteeda ka soo muuqanin dhinaca kale liidiya fariintii uu soo qortay kool maadaama uusan ugu soo jawaabin go'aansanaysa in taleefanka gurigooda yaal ay wacdo waxaase ka qabanaya kool hooyadiisa waxayna weydiinaya kool intuu jiraa taleefanka dhammaanta dhan igama soo jawaabay waxay isugu jawaabay iskuulka kama soo noqonin liidiyana kama dambeyntii xaqiiqsatay in weli kool uu ku sugan yahay mid kamid qolalka iskuulka isla markiina soo aaday meesha markay imaadana qolkii biyaanada Italy iyada iyo b face to face isku arkayaan liidiyana waxaabiyay rumaysneed oo dhan ayagoo waadaha ay halkaas ku arkayso intaas kadibna saddexdooda ay wada bilaabayaan wada sheekaysi weliba nooca wadnaha ka soo baxa ah liidiyana ay b uga sheekaynaysa wiilkan wejida kool yidhaahdo waa wiil inta badan dadkaan la hadlin gabar iska dhaafurkeeda waa xishood badan yahay sababta uga xun yahay inaad uga tagtana agtaada xoogaa wuxuu ku dareemaa farxad
intaa kadibna labadooda sheekaysanaya meeshuu uga tagay banaankiina markuu usoo baxay wacaayo shirkadii farantigii labaad xaraashiisay waxaana loo sheegay farantiga weli inaanan la gelin museumkana uu yaallo taas uu aad ugu farxana kusoo noqdo qolkii labadan gabadhii ku jireen una sheegayo warkaan farxadda leh intaa kadibna saddexdooda wada socdantay soo qaateen gaari imaanaya museumkii New York ku yaalay raaditaankoodina kama dambeyntii helay farantigii labaad meesha uu yaalay sanduuq uu ku jirana ay kala fureen si banaan ka helay intaa kadibna si ay labadooda isugu taabtaan kool oo iska bixirabay farantigii uu bii ku arki jiray mar walba gabadhan ay ka codsanaysa inuusan taa samaynin qorshaheedana uu ahaa in labadooda maadaama maanta ay isarkaan ugu dambayso ismac salaamayeen intaa kadibna wiilkan uu farantiga iska bixiyey kii kalena isku geeya labadooda taasna keentay bii meesha dhan inay ka miriqdo oo ruuxaanteedii ka xoroodo ku dhex jirka ee ku dhex jirto farantiga halkiina qoftii uu jeclay uga soo tagay isaga Lydia oo wada socdana soo wada baxeen kool markuu gurigiisa yimaaday gabadhan buuggii oo markii hore farantiga kula xarkaya kala furaayo wuxuuna iska fiirsanaa sawiradeeda go'aana ku gaaray inuu sawiradan xasuus ahaan u haysto dhinaca kale ruuxaantii biyahayd oo qiratay markii hore qalad ee ku hayd farantiga inay ka soo qaatay museumkii bilowga filimka dib ugu soo noqotay isla museumkaas waxayna farantiga ku celinaysaa isla meeshii ay ku aragtay saasna ay ku noqotay xur muddo ka soo wareegatay kadib kool oo weli gabadha xasuusteedii la nool xooga siisa waxbarashadiisa taasna ay keentay in natiijo fiican uu ka keeno iskuulkiisa sina dugsiyeedkii dhammaadkiisa wiilkan uu ka qayb galay showgii ee hadda goor gabadhan ka codsanaysay isagoo gitaarkiisa iska tumaya war uusan u haynin gabadhii biyahayd ruuxaanteeda oo dhammaan dadkii kale ka horreyso isagaana daawanayso ballantii hadda goor qaadana ka soo baxday xaggaasna ayuuba filimka asna ku dhammaaday waad ku madsanta daawashadaada